gudoomiye ku-xigeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Axmed Cismaan Xasan oo ahaa komishineerkii u qaabisnaa gobolka Togdheer guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tirintii codadka ee gobolka Togdheer guud ahaanba waxaanu u mahad celiyay shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer iyo waliba asxaabta qaranka iyo ururada ee tartanka ka dhaxeeyay isagoo ka hadlayna waxa uu yiri gudoomiye ku-xigeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad wayse wanaagsan habeen wanaagsan waxa hadda noo soo gabagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka Togdheer kiyo marka hore degmada Oodweyne ay horay iyadu u sii gudubtay ilaa Hargeysa laakiin go'aankii guud ee gobolka ayaa saacada imka noo soo dhamaaday noo gabagaboobay alxamdulillah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee Hargeysa oo insha Allah natiijada laga dhawaaqi doono marka la isku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shacbiga gobolka Togdheer waxaan ku dhahdaa nabadgelyada leh u codeeyay amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhexmaray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka komishan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdirasaq Koronto Dalsan TV Burco.